بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ما هذا دن الله سبحانه جل وعلا أي أسقناطي وحان مانتا إليه سبحانه وتعالى ومهد علينا يعني معول بو ما هذينتا إليه سبحانه جل وعلا لو مهد علينا وحي كو زيادة ساني معوين كذا والله سبحانه وتعالى كو زيادنا لئن شكرتم لأزيدنكم. intaasi kadib walaalayaal sidaad ogsoon tihiin barnaamijyo badan ayaa idinla qaybsan jiray, wacyigelino badan, waano badan, dardaaran, wacyigelin, waano iyo xasuusin iskugu jira. allah subxaanahu jala wacalaa muslimiinta wuxuu ku manaystay diin wa allah subxaanahu watacaala yidhi ina addiina cinda allahi alislaam. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minh wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin. saad ogsoon tihiin nolosheenoo dhan waa diinteena, diinteenoo dhan waa nolosheena. sidaas darteed sanado badan ayaa waxaan kasoo fikiri jiray inaan u sameeyaa dhalinyarada mowduuc ama arrimo badan ay ku haysan karaan diintooda, ay ku dhaqmi karaan diintooda iyagoo u leh cilmi. alxamdulilah arrimo badan baa isku dayay, barnaamijyo badan baa isku dayay. ilaahi subxaanahu jala wacalaa fadligiisa kadib wuxuu maanta ii fududeeyey inaan soo bandhiga waxyaalo badanaa ku fikri jiray. waxaa ka mid ahaa ha aamusin, ilaahi subxaanahu watacaala xus. maanta waxaan u malaynayaa intaasoo walaalo oo ku xiran instagramkayga iyo snapshatka iyo facebooka inay maanta mar walba allah subxaanahu watacaala xusaan ay iisoo sheegaan. hada fadl llahi jala wacala. waxaan kaloo rabay riyo kale inay ii rumowdo, riyadaasoo ah inaan u sameeya dhalinyarada jacaylka diinta, fahanka diinta, ku dhaqmidda diinta inay u noqoto meel walba. sidaas darteed waxaan ku fikiray arinkan bkd inaan u sameeyaa dhar amaan u sameeyaa qaabay dhalinyarada qalbigooda iyo maskaxdooda iyo dharkooda iyo dhaqankooda dhan inay u noqotaa diin. maantana ilahi subxana wataala wuxuu ii fududeeyey inaan ku guuleystaa barnaamijkaygii ama projectigii aan soo diyaarinayo intaasoo sanado. ilahi subxaanahu watacaala ii fududeeya, weli waa bilaaw, laakiin allah subxaanahu jala wacalaa mahadiisa kadib waxaan u mahad celinayaa walaalahayga bkd, walaalahayga adduunka dacaladiisa joogo. haddaanan maanta qarash iyo maaragtay lacag iyo maaragtay wax kale aanan idinka helin, waxaa idinka helay taageero walaaltinimo daacad ah, taageero walaaltinimo diin ah. maanta lacag keli in laysi siiyo ama lacag laisku taageero muhiim ma aha. waxa laisku taageero ugu wanaagsanne waa caqli, waa maskax, waa fahan iyo kalgacayl iyo walaaltinimo. aad iyo aad umahadsantihiin. bkd iyadoo maaragtay dhar ah insha allah biidn illahi alkariim waa diyaar. hadda waa bilaaw, insha allah biidn illahi alkariim waxaan rajaynayaa inay arrinkani inoo noqotaa arin dhaxal leh. wajazaakum allah khayran, ilaah khayra idin siiyo. dhiirigelinta ay ugu dhiirigeliseen waa midaan lasoo koobi karin. waxaana jeclaan doonaa insha allah yowm min alayaam inaan arki doono bkd oo adduunka dacaladiisa ku faaftay meel walboo dhalinyaro soomaali ay joogto. idinkane waad igu caawin kartaan inaad maaragta arrinkaasi gaarsiisaa. haddii aad degan tahay wadamadan scandinavianka ayaan ku bilaabi rabaa, khaasatan sweden, norway, finland iyo denmark. fadlan ila soo xiriir si aan kula qaybsado projecti aad iyo aad u wanaagsan, dhaxalgalna u noqonayo dhalinyarada. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh. waa mahadsantihiin. I love you. ilaahay darsaa idin jeclaa kulligiin.